asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhowaada daawadayaal janalkiina qaalin media. waa aroornimo sabti ah. waxaan maanta soo tabinaynaa geeridii ku timaaday xalay sheekhii oo ka mid ahaa shuyuukhda soomaalida ee la oran jiray sheekh cusmaan xidig oo geeriyooday. allahu naxariisto, qabrigiisana allah waasaxa ugu dhigo. sidaa darteeda waxaan jeclahay inaad ila ogaataan sheekha xaaladiisa sida ahayd iyo hadda halka ay ku dambeyso iyo duugtiisa iyo aaskiisa halka uu noqonaya. daawadayaal kusoo dhowaada, subscribeta iyo laagtana ha ka iloobina, waa dhankiina. kheyr fara badan ayaan idinkaga tegay. waxaa geeriyooday shaykhul islaam walmuslimiin oo ah sheekhayni sheekh cuthmaan, sheekh cumar, sheekh daa'uud culusow. meeshii isagu uu ka hor kici jiray sheekhan dhinacayga bidixdaa fadhiya oo loo yaqaana sheekh cabdulfataax, sheekh abuukar, sheekh axmed, sheekh daa'uud. meesha lagu asturayana waa goob horay ou asagu ugu talagalay oo loo yaqaana masjidu shifaa agteeda ku taalla degmada kaaraan ee ka tirsan muqdisho. bismi illaahi araxmaani araxiim. inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. inna lilaahi maa akhada walahu maa acdaa wa kullu shayin cindahu biajalin musama. caawa oo sabtiya marka saacaddu ay ahayd 7 ee saqdhexe waxaa geeriyooday shaykhul islaam walmuslimiin oo ah sheekhayni sheekh cuthmaan, sheekh cumar, sheekh daa'uud culusow. wuxuu u guuray ilaahay raxmaddiisii. ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannadiisa ka waraabiyo. waxaana uga tacsiyeynaynaa muslimiinta oo dhan, maadaama ay tahay fangar ka jabtay muslimiinta, dhib weyn oo soo gaaray muslimiinta, oo uu ahaa axad cimrigiisoo dhan u hibeeyey shareecada islaamka, diinta islaamka, barashadeeda iyo bariddeeda wejka ugu fiican ama dariiqada ugu saxsan ku waday, cimrigiisoo dhanna diinta islaamka u hibeeyey. waxaan leenahay waa idinkaga tacsiyeynaynaa dhammaan muslimiinta. gaar ahaan waxaan uga tacsiyeynaynaa inta sheekha xiriir dhow iyo xiriir dheer intaba lalahayd. si gaara waxaan ugu tacsiyeynaynaa ummadda soomaaliyeed ee caalimkoodii weynaa ee ku dhex noolaa uu geeriyooday caawa. iyagana waa uga tacsiyeynaynaa, oo asaguna gacantayda bidixa dhinaca xaggeeya fadhiya. waxaan leenahay marka dhammaan muslimiinta iyo islaamka sabar iyo iimaan allaha siiyo, beddelkiisii oo khayr qaba allahana siiyo. in sha allaahu asturkiisii waxau dhacayaa birayto in sha allaahu bacda duhri, salaada gadaasheeda ayaa sheekha la jecel yahay in la asturo. meesha lagu asturayana waa goob horay ou asagu ugu talagalay oo loo yaqaana masjidu shifaa agteeda ku taalla degmada kaaraan ee ka tirsan muqdisho. halkaasaa aaskiisuna naqon doonaa in sha allahu tacaala. ciddii maqanna salaatuljanaaza cala alghaa'ibay usoo dukan doontaa, ciddii joogtana iyadaa ku dukan doonta in sha allahu tacaala. xilliga duugtana waa xilligaas, goobta duugtuna waa goobtaas. waxaan leenahay ilaahay raxmadiisa waasaca aheed ha ku shubo, muslimiintana sabar allaha ka siiyo. inta shinsanaysay oo eeganaysana sabar ya iibaan allaha ka siiyo. adduunyo la joogi maayee cumri dheer iyo caafimaad
انت دلهون جوجنا الله نوصيو عبادة بدن أو مقبولة وقت يهدي لقاره قولك قول نوغدن به لا إله إلا الله الله كديغو قبرك هدي أنقلنا نلبو قمامودو قرابة أخوان كيني ولاديني كون ضيايو meeshaas nooga soo kacaan ilaahayow adiga maahane cid kaloo laba badbaadayo ma jirtee cid kaloo noo gargaarayso ma jirtee ilaahayow qabriga dhexdiisa musbaaxan dami nagu sii rawdatu min riyaadi aljanna ilaahayow nooga dhig حفرة من حفر النار إلهي وهنوغ ديجن إلهي وهنوغ ديجن منكر ونكير عليهم السلام مركي نوي ماذان سؤال شيء نسويديها يان جوابت هذا إلهي ونوفض كوا ويهاي budka ay ku garaacayaan kud aan insi iyo jin aysan qaadi karin ilaahay kuwaas hanu darin ilaahay hanu darin qabriga dhexdiisa waa ciriiri waa mugdi waa cabsi ilaahay noo waasici musbaaxan damin ilaahu noogu daar ilaahay noogu daar ilaahayow camalkaas aan ku heli lahayn lama imaanin ee ilaahayow nagu tafaadul ilaahayow qiyaamada weyn haddii la isugu yimaado ilaahayow noo kaalmee ilaahayow noo kaalmee annagoon jahannama jasadkeenna aysan taaban siraadka kuwa ka gudbo ee jannada dhexdeeda ku sheekaysto intaan ay inta nabiga xustoo la jecel oo dhan allaha ka dhigo inta xuskiisa shaki uga jarane allaha soo hanuuniyo